qarnigoo labaatana dhirin anu qayla doon rabaa qaahira kalgacal tegay yaa kala qorsheyn karaa cabdirashiid heestaasi waa heestii dhagarta keentay baa la yidhaahdaa heestaasi dhagar bay keentay baa la yidhaahdaa waa kadib uu soo helay waa la kaxeeyey meeshii boostooyinka telefoonada laga dirayey baa la geeyey axmeddey telefoonkii buu qabsaday dabeedna waa gartay halo waa axmeddey markuu yidhi ayaan la hadashay hadalkii hoos bay u dhigtay ayaan waa gartay axmeddey dareenkiisa wuu ku jiraa in gabadh la qaba ay tahay sax miyuu kula joogaa buu dabadda hoosu yidhi axmeddey waa gartay ya waa gartay sheekayn doona hal qiso fanaan caan ahaayo in badan aa wada maqlayseen ama in badan aad codkiisa dhegaysateen axmeddey abubakar baa la odhan jiray abwaanka fanaankaas allah u naxariisto axmeddey abubakar waxau ahaa fanaan reer muqdisho ah oo indhala caan waxa uu ku ahaa inuu ahaa nin indhala axmeddey waxaa ku dhacday qiso jacayl ah axmeddey waxa uu deganaa guri ku yaalla magaalada muqdisho waxaa gurigiisa inta badan fadhiisan jiray oo uu hoy u ahaa fanaaniinta iyo abwaanada iyo halabuurada dee fanaaniintii hobalada waa beri la odhan jiray guri kasoo horjeeda ama ku dhow waxaa deganayd gabadh aada u qurux badan sidaa dee la sheegay ama xogaha aan helay ay sheegayaan dabeedna inantaa inta badan dadka indhaha ayaa kaga dhici jiray qolada fanaaniinta iyo abwaanaduna waa dadka indhaha dhaadheer le kolle aad bay wax u eegeegaan eegistoodaa faraha badan le inantii indhaheeday ku bateen dabeedna mar walba ninkii axmeddey waxa dhegihiisa iyo qalbigiisa ku dhacaysay inay inan qurux badan daris la tahay axmeddey sidii qof nool oo soo jeeda ayuu inantii quruxdeedii naturally u noqay qalbigiisa ugu sawirantay halkiiba ku jeclaa deedna jacayl baa isaga laftiisii baa xadaxanta jacayl ayuu dareemay xadaxantadii jacaylku waxay ku kaliftay inuu dee raggii dee asxaabta u ahaa ee macnaha lahaa ee dee abbaanadii iyo fanaaniinta ahaa ee dee waa beri oo dee dadka ugu magaciyo muuqroonaa inuu ka dhaadhiciyo inay inantaa la kula siiyaan waa lala kula siiyey dabeedna akhirkii adigu waa lala kula siiyey axmeddey nin hadal macaan buu ahaa gacmo furan leh sheekaawiya dabeedna inanta lafteedii inantii yaray ayaabuu qalbiga saa u dhaqdhaqaajiyey waa garta ya sax oo uu xadanta jacayl ku dhex beeray xadantadii jacaylka inantii ku dhacday iyada lafteedii iyadoo jacaylkii axmeddey sidaa u lulayo ayay inantii dugsigii sare ka baxday dabeedna waxay aabaheed reer lalanba inantu ka dhalatay dabeedna aabaheed waxa uu diray dalka masar magaalo madaxdiisa qaahira axmeddey wuu ogaaday inay intii qaahiro tagtay dabeedna asxaabtiisii maalin walba midbu ku yidhahda waryaa horta weligaa qaahiro ma tagtay marba qofku ka waraysa wari horta qaahiro kuma arkay ninkii axmeddey warkiisii wuxuu kusoo afgo-ay inuu qaahira cid ka sheekaysato anaa beri qaahiro tegay deedna raggii maalin walba waxbaa laga sheekeeya dayla halabuur baa joogay meesha rag baa joogay macnale baa joogay dee dad dareenadaa ninkaa yacnihii qalbigiisa kasoo maaxanaya oo qisadiisana ka warhayey ayaa dabeedna heesta qaahiro laydhaa oo furitaan u ah heesihiisa qisada xidhiidhsan ee afarta heesood ee jacaylka ayaa loo sameeyey dabeedna isaga ayaa qaada qarnigoo labaatana dhirin anu qayla doon rabaa qaahira kalgacal tegay yaa kala qorsheyn karaa waa gartay heestaasi waa hees runtii aada u macaan qofka dhegaystaana runtii waa qiso taaban karta midhaheeda iyo balheesteeda midhahaas markaa midhaha runtii heestaas qaahira markaa abwaanadii ag fadhiyey ka ag dhawaa ayaa curiyey heesta ka curiyey waa gartay axmeddey dabeedna inantii xilligii waxa ay gaadhay waqtigii fasaxa ayay gaadhay waxa la sheegay inay ayaan imanayso dee muqdisho kusoo noqonayso ay imanayso sax axmeddey markiiba raggiisii dee rag buu lahaa gacmo iyo luga iyo indhaba u ahaa waa gartay raggii waxa uu ka dalbaday in inantii casuumad loo sameeyo oo lala kulmo intii qabanqaabadii casuumadda lagu jiray inantii markay qaahiro tagtay safiirkii soomaaliya xilligaa joogay ayaa inantii jeclaaday lafteedii waa in dee jacaylkii safiir baa jeclaaday safiirkii inantii waxba kuma odhan dee ardadii jaaliyadda markay qaahiro tegay soo dhaweeyey buu ka mid ahaa laakiin jacaylkiisii isagoo qarsanaya ayay inantii markay muqdisho timid uu kasoo daba duulay reerkoodii buu weydiistay waa la siiyey inantii waa la siiyey ninkii axmeddey isaga casuumaddii diyaariyey maalintii casuumaddii uu diyaariyey
ayaa dabeedna casuumadii isagoo ay u diyaartahay ayuu dadna yidhi inantii ballantii ha loo soo sheegay casuumadda waxaa loo sheegay in ayaan shalay la bixiyey nasiib dar casuumadina waa diyaar casuumadiina waa diyaar iyadii buu sugaya axmed day meesha gurigiisa waa lagu qayli jiray tuqaadkii duuduubay waa casuumadiinba dhacday yidhi in tuqaadkii wixiiba daadiyey buu jiibsaday naxdin ka xun ma jirto qof dhan oo sugayso casuumad aad u fidisay oo absolutely warkii kaaga yimid uu noqday inantii waa la guursaday casuumadii dabeedna ereygaa uu sameeyey waa ariga taga casuumadiin dhacday heesta casuumad la yidhaah aad macno badan u xambaarsan oo sheegaysa waxa ku dhacay iyo kala kaca ku dhacay waa halkii ciyaalka ayaa laga sameeyo casuumadi ma joogtaa la yidhaah heesta ceebladaydi way tibi casuusley casuumadi ma joogtee ceebladaydi way tibi casuusley buu qaadaya waa gartay waxaan sii socon doonaa weli ku jirnaa qisooyinkii fanaankaasi Axmed Day oo inoo wada Cabdirashiid weli Axmed Day ayaan oo la guursaday weli kama hadhin jacaylkeedii weli kama hadhin inantan ayaan baa la oran jiray qalbigiisa ayay weli daba socotaa waa gartay ninkii Axmed Day waxa uu yidhi halka ayaa degan tahay waan mar uu telefoon kula hadlaa xataa waa gartay Axmed Day inantii telefoonkeedii baa la raadiyey oo gurigii safaaradda telefoonkeedii baa la raadiyey weli uu daba socdaa waa gartay dabadna telefoonkeedii uu soo helay waa la kaxeeyey meeshii boostooyinka telefoonada laga dirayey baa la geeyey Axmed Day telefoonkii buu qabsaday dabadna waa gartay hello waa Axmed Day markuu yidhi ayaan la hadashay hadalkii hoos bay u dhigtay ayaan waa gartay Axmed Day dareenkiisa uu ku jiraa in gabadh la qaba ay tahay sax miyuu kula joogaa buu dawladda hoos u yidhi Axmed Day waa gartay waa gartay markaa waa nula joogo og taagnaa malaa ninkeedina kulley waa laga yaabaa inuu ag taagnaa sax dabeedna dareenka intaa ka dhashay ayaa heesta saddexaad oo telefoon la yidhaa ama halow heestaan la ayaa la yidhahdaa ayuu diray heestaasaa laga sameeyey waa gartay heestaasna waynu daawan doona halow baa magaceeda la yidhahdaa hamigii iyo kalgacalkii heer sare iga gaadho adna hawlaheennii weli maad hirgelinina waynu kala halawnay halka sidee laysu helayaabaa ku jirta halow heestii cajirad buu ugu duubay dabadda qaahiro inantii ugu diray qaahira lagu qabaa waa gartay muqdisho jooga heestii inantii waxay ku noqotay wax surprise waa gartay inuu weli jecel yahoona naftiisii ka go'in waa gartay iyaduna way jecleed oo dareen jacayl uu ku abuuray laakiin dee calaf baa ka adeegay oo meel kale ayay bartay waa gartay cajaladii buu u diray inantii cajaladii maskaxdeedii iyo nolosheedii saameyn weyn ayay ku yeelatay Cabdirashiid heestaasi waa heestii dhagarta keentay baa la yidhaahdaa heestaasi dhagar bay keentay baa la yidhaahdaa waa gartay waxaana kusoo afgo'ay jacaylkii Axmed Day iyo ayaan waa kusoo afgo'ayba waxa kusoo afgo'ay oo kaleba sida la sheego noloshii ayaan waa gartay nolosheedii oo xataa ninkii kale lama sii wadaagin sida la sheego ama xogta aynu ku helay in iyadii cajaladii bay israaceen marka cajaladii sidaasay rikoodhka ugu celcelisaa habeen iyo maalin way ka seexan weyday waa gartay dareen bay ku samaysay dabadna ninkeedii oo shaqo tegaya subaxii ayaa dhowr goor u yeedhay iyadoo cajaladan ay ku maqantay way maqli weyday isagoo cadhaysan buu soo baxay wuu u yimid daaqaday taagan tahay fooq dheer oo dabaq oo webiga niilna hoostiisa maro waa gartay ayay waa webigii niil hoostiisa maro ayay degan yihiin oo safaarad deganta waa gartay cajalada iyadoo ku maqan sheekada dhaqaahira iyo waxaana dee kolley dee fulaxantii ma mooge baa layidhi waxbuu kolley dee ka og yahay waa gartay dabeedna cadhadii buu cajaladii intuu bakhtiyar koorka ka saaray cajaladii buu kala jebiyey wuxuu ku tuuray webiguu ku tuuray webigii baa cajaladii qaaday waa gartay uu iska shaqo tegey sax inantii maroro dilaac iyo qalbi jab xoogan baa ku dhacay sida la sheegay ama xogta ku helay waa gartay dabadeedna arrintaasi waxay abuurtay walaac fara badan inantii ku abuurtay adoo akhirkii waxa la sheegay in inantii duurkii isla daaqadii cajalada laga tuuray ay iska tuurtay oo ay daaqadii iska tuurtay iyadina webigii raacday iyana cajaladiiba raacday sida la sheegay waa gartay dabeedna heesta ugu cajiibsan oo webigii jacaylka la yidhaahdo abwaanka sangub la yidhaahdaa sameeyey ayaa la sameeyaa soobaa waxaa la yidhaahdaa oo kale heestaas waxay xambaarsan tahay waa heesta ugu laxamka adag labaa la yidhaahdaa heesaha Soomaalida runtii daawadayaashu way daawan heestaas xataa miisigeeda waxa ku jira biyaha ku jira waa la heesaha ugu laxamka adag labaa lagu tilmaamaa waa gartay biyaha ku jira waxa ku jira dood adag oo aad u adag oo qalafsan ayay heestu tarjumaysaa oo dhex martay webigii inantii qaaday oo uu cadhaysan yahay Axmed Day webigii wuu waaninaya Axmed Dayna wuu u cabaraya webigii oo wuxuu leeyahay dagaal bay naga dhaxeeya bal heesta wax yaro kamid ah
webigii qaadayo kaan weheshanaye weligay intaan jiro wanaag wanaag ha iga filanine weerariyo colmooye walle nabad inaga dheer walle nabad inaga dheer wana kuma qalaye webigii jacaylko bandhandha